بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين داوديال maanta waxaan u googleynaa labadii waayeel ee walaalaha ahaa ee 86 jirka 83 jirka ku rafaasanaa magaalada Tankismaayo hooy la'aanta oo arkaysan jodarigaas koobaad waxa iska leh aabba budul oo weligiis aan dhalin runtii oo 83 sano jir ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakay inta maanta u soo jawaabtay jodarigaas loo googleeyo u iibisay raashinka u iibisay lacagta uu deeqday ilaahay ha barakeeyo sidaas oo kale haddana isku garab istaagno walaalyaal wax dayacan lama arki lahayn runtii alxamdulilaahi rabbil caalamiin aabba budul joodarigiisa waa kaas aabbe kale wuxuu ku seexanayay waa aragtaan hoygaas ayuu ku seexanayay maanta waan ka qaadaynaa insha allahu tacaala sariirtaasi waa yeel uma qalanto balse shacabkiisa soomaalida iyo muxsiniinta ayaa maanta sariirtaas arkaysana quruxda badan u soo gaday ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo joodariga ayaa loo saaray go'ya ayaa loo googlayaa dhammaan insha allahu tacaala waa yeelaha dayacan ee dhinacooda aan awoodin inuu dhulka qabto waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad gacan u soo fidi doontaan allah idiin barakay aabba budul wuu soo baxay intuu seexan doonaa insha allahu tacaala waa arkaysaan muxuu ka dhahay maanta aabba budul farxadda maanta uu dareemi doono meela dareemi doontaa insha allahu tacaala allah ku barakay hadalladiisa waxaa ka mid ah aabba budul dhegeysi wacan anta farxadayda haddee leebo idinkaba hadda waa malayn kartiin nin dhibaysnaa oo carrada ay korkiis ka batay oona gaajaysna oo raashinna loo keenay alxamdulilaahi sariir iyo joodari loo keenay dee farxaddiisa asaga taas tulliis warsanay ducadaa way dhacday ilaahay idin dhali intiidina wax noo soo dhibtayna allah u dhali alxamdulilaahi rabbilcaalamiin bismillaahi rahmaani rahiim adeer ducadii allaha idin siiyo aakhriga adduunyo annagana allah na caafiyo ilaahay idankiis sidaqadii werd iyo geeri furatay waaye allah ka dhige khayr aan isku ognaa khayr aan ii rajaynayna walaalayaal waxaan kaloo idinka codsanaynaa labadan aabbo u aragtaan khaasatan aabba ibraahim rafaadka iyo silaca oo labada albaab ku soo korayo kaasi waa hadda albaabka koowaad markuu kaadi rabo intaasoo rafaad ayuu marayaa sidaasay tahay gurigan ayaga ma lahan waa lagu haystaa waa la dhisayaa habeenay maalinka baxaa la leeyahay meel la geenayna ma lahan waxaa idinka codsanaynaa labadaas waalid inaad u raadisaan hooy lagu hayo rubacba allaha ka dhige gabadhaas lambarkeeda shaashadda uu saaray inaad la soo xiriirtaan qof kasta wuxuu awoodo u soo diro si loogu dhiso rubac ay leeyihiin oo gaaban waayeello way hadda kadib way sii jilcayaan aabbaha waxaa la jeceshaha la jeclow aabbaha maanta inuu rafaado oo laba albaab oo jiingad ah oo weliba mar xataa dhaawac u geysato salka dhaawac u geysato inuu maanta albaab u noqoto maadan jeclaan lahayn labadan aabbana waxaa idinka codsanaynaa insha allahu tacaala inaad hooygan dhaamo aad u samaysaan numbarkooda tooska aad kala xiriiri kartaan waa balaas 25 26 hal 4 57 76 eber 9